بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله تعالى منا ومنكم، ونسأل الله جل وعلا فرجا قريبا لهذه الأمة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وردنا والمسلمين جميعا إلى دينك ردا جميلا. maanta waxa aynu bilaabaynaa xadiidka ugu horeeya kitaabka loo yaqaano al-arbaciin an-nawawiya. kitaabkan waxaa ku jira 40 xadiis iyo wax ka badan. magaca al-arbaciin oo ah luqadda carbeed 40 waxa uu sheegayaa 40. marka 40 xadiis oo xul ah ayaa uu ku soo ururiyay al-imaam an-nawawi raxmatullaahi calayhi. laakiin hadda marka aad kitaabka furto 40 xadiis way ka badan yihiin marka la tiriyo ilaa 45 46 47 way gaarayaan, oo waxaa lagu siyaadiyey dhowr xadiis oo dambe. waayahay 40 xadiis waxa weeye 40 xadiis oo xul ah oo haddii qofku si fiican magaranaysaa macnahooda u dhigto kuna camal falo diintiisa magaranaysaa in badan magaranaysaa ka qaadan kara. waayahay xadiisyada ugu badan ee magaranaysaa nolosheena dabaqaya ayaa ku jira 40 xadiis. xadiiska koobaad waxaa soo warinaya amiirul mu'miniin oo ahaa cumar ibn al-khattab. waxa uu ahaa cumar ibn al-khattab amiirkii labaad ama مثلا khaliifatul muslimiin oo ka dambeeyay Abu Bakar Abdullah ibn Quhafa. cumar ibn al-khattab wuxuu ahaa amiirkii magaranaysaa waqtigiisii magaranaysaa yani dowladdii islaamku ay aad u gaadhay meel kasta oo caalamka ka mid ah. yani bari iyo galbeedna laga haybadaysan jiray. cadaaladii uu magaranaysaa gaadhsiiyey caalamka oo dhanna ay ahayd tii magaranaysaa uu geed hoostii keligii iska seexday markii amniga iyo ammaanka iyo nabadda lagu naaloonaya meel kasta gaadhay. cadaaladii uu magaranaysaa caalamka ku fidiyey ee waxay sababtay in uu magaranaysaa seexdo geed hoostii, caw yar iskaga jiibsado amaba ciidba iska barkado, dabeetana la yidhaahdo laqad cadalta ya cumar fa aminta fanimt. waad cadaalad samaysay cumarow, dabeetana waad aamin noqotay, dabeetana waad seexatay. maquuladaas ama hadalkaas markaa caan baxay waqtigaas. cumar bin khadaab radiyallahu anhu waxa uu ahaa nin aad u xoogan xagga magaranaysaa ra'yiga iyo go'aan qaadashada iyo raganimada. waxaana waqtiga magaranaysaa jaahiliyadu jirtay oo ahaa raggii ay aad uga dambeyn jireen qurayshtii magaranaysaa gaalada ahayd. rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu ku ducaystay in ilaahay islaamka ugu guuleeyo labadan cumar. marka laba cumar baa jiray, yani cumar ibn al-khattab iyo cumar ibn hisham. cumar ibn hisham oo loo garan ogyahay abu jahl. abu jahl kaas oo ahaa magaranaysaa rasuulka adeerkii. adugu isku soo duuduub xadiidka koobaad cumar bin al-khattab ayaa warinaya radiyallahu anhu. waxa uu yidhi قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلهي أيام مقلي يقول إسواله إنما الأعمال بالنيات. أعماشه والنيوين كلية أي كسوين. أعماشه وحا أي مقرانس أي كحرمتو كلية والنية. وإنما لكل امرئ ما نوى. qof kastaana waxa uu niyeysto ayuunbuu magaranaysaa leeyahay. marka waxaa loo xisaabinayaa qof kasta niyadiisa. faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasuulih.
qofkii haddaba hijradiisu ay noqoto xaggaas iyo ilaahay iyo rasuulkiisa, hijradiisu waxay ahaanaysaa xagga ilaahay iyo rasuulkiisa. fahijratuhu ilaa allahi wa rasuulih, hijradiisu waxay ahaanaysaa xagga ilaahay iyo xagga rasuulka. marka haddii dee niyadaadu ay tahay dee inaad camal fiican samayso oo magaranaysaa xagga ilaahay xagga rasuulka u dhaacdo oo diinta magaranaysaa u adeegto, niyadaadu saasay ahaanaysaa. haddii niyadaadu magaranaysaa kuma khiyaamayso, dee waana lagugu magaranaysaa abaal marinayaa, waanaad helaysaa magaranaysaa wixii faa'iide ay kusoo jarto niyadaas fiicani. waman kaanat, qofkii haddaba ay ahaato hijratuhu, hijradiisa مثلا dee wixii uu qasdiyaya ay noqoto lidunyaa yusiibuhaa, adduunyo uu soo kasbado, aw imra'atin yankixuhaa, ama gabadh uu soo guursado, fahijratuhu ilaa maa haajara ilayh, hijradiisu waxay noqonaysaa wixii uu hijroodo keliya may noqonaysaa. marka qof dee yani niyad xun sameeyey dee wax fiican lagu abaalmarin maayo, dee yani kulba niyadaadu waxay ku goyso ayaad leedahay weeye. waxaa soo wariyey xadiidkan labada muxadis ee xadiisyada maxay ururiyey saxiixa ah, أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. رواه البخاري ومسلم ayaanu aragnaa badanaa xadiisyada in magaranaysaa lagu dhamaystiro. marka labada imaam oo ahaa imaamyadii xadiisyada saxiixa ku ururiyey kutubtooda ayaa wariyey xadiiska koobaad oo ah al-a'maalu bin-niyaat. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.